وسؤال أدو ونكسن وأرينا عن مدة 3 بلود نوقعتي سيدي حل له هلي كراه أنت بدن أنا وصاحب بدي دولة فدرال كان كيمد مدة كودا شقينين أما قولها وزير ذا أما مركو حنكوير هذا دولة فدرال كو إذا كجسوا تجي دولة هوساني من حمرة ما حد إيده وسعتها ما ندافتان مركو رنتي ودب مشكلة جرتواي أو سياسة ayaa waxay isu bedeshay dadka qaarkood danley oo arimadana gaar ah iyo magacii ay umada u hayeen runtii xafiisyadiina maxaa dib ku ah taasoo fursad noo diida shacabkii caadiga ah oo rabna inaan u adeegno u qadmayno aan u taagana inaan aragno marka runtii taas wali waxaan wadnaa xalkii waxaan hadda sameeynay maalmo ayagana u gaara maalmo bulshada kale u gaara si fursad aan ugu helno in qof walba oo Soomaaliyeed oo adeeg nooga soo baxda adeegii loo helo sababahan adeeg u daadajinay degmooyinka u geyneen waxay ka mid ahayd in firaaqadaas la helo annagana ku mashquulno juhdina gelino sidii aan magaaladan wax uga qaban lahayn marka runtii annaga waa naga go'an tahay siyaasiyiintana waxaan rajaynaynaa in ayagana ay muxuu ahaa waqti noo siiyaan aan bulshada ugu adeegno sidoo kale iyadana waxaa nasiib darro ah arrimo waxaa arkaysaa qof muwaadin ah oo ku iman waaye in qof senator ama xildhibaan inta soo wada xafiiska ku soo gelinay oo runtii qofkii kale fursadii uusan helin ayuu qofkan helaya marka taasna inta badan aad baan ugala hadlaa xildhibaanada iyo senatarada oo iraaha muwaadin walba waa inaan si xaq ah cadaalad ah ugu adeegno marka ayagana aad baan dhowr jeer ugu codsaday arrimaha haddii ay yihiin arrimo shakhsi iyo ku saabsan inay nidaamka la soo maro iyadana waxaan rajaynaynaa in nidaamka iyo muxuu ahaa ummaddu la qabsan doonto oo la baran doono laakiin waxaan rajaynaynaa annaga waxa meesha u joogno waxay tahay adeega shacabka inaan waqti badan gelino u adeegnana waa naga go'an tahay oo inta badan aan u soconnaa degmooyinka u tagnaa habeenkii u wareegnaa u fiirinaa inay ciidamadu shaqaynayaan howlgalayaan waxaasoo dhan wax waajibna saaran waa runtii muddo 10 sano aan kusoo jiraa siyaasadda aniga oo magaaladan jooga Muqdisho heerar kala duwan soo maray ana wasiir ana aqbalay maamulka gobolka sababta aan aqbalayna waxay ahayd shacabka gobolka in loo adeego oo loo khidmeeyo inay tahay waajib qof kasta muwaadin saaran haddana saasay tahay mar walba caqabadaha jiraayo caqabaduhu aad u fara badan yihiin midda aan rabo caawina aad uga dhawaajiyo waxay tahay runtii dhaqanka Soomaalida oo dhaqankii lagu yaqaanay Soomaalida dad qable dad maaragtay midnimada iyo wadajirka ka shaqeeya dad u istaaga arrimaha dalka dad u damqada damiirka dadka muxuu ahaa dulman waxaad moodaa in ama cabashadu ama dadka aad arkayso mar walba inay dad danley ama siyaasiyiin ha ahaadaano ama dad kaleba qofku dantiisii inuu ka hormarinayo danihii runtii taasna aad bay ii dhibtaa waxaan jeclaan lahaa qof kastoo ama xafiiskii ugu imanaya ama ii imaanayo danta guud qofkaan wadin oo dan gaara wato fadlan isu waqti naga dhumin runtii taas dhaqankaas in Soomaalidu ay bedesho aad aan u jeclaan lahaa وهذا أدب مع سيا قدومية قبل كبنادر هنا تقى مقالة مقدشو عبد الرحمن عمر عثمان